buugga Dark Psychology ama cilmi nafsiga mugdiga ah oo uu qoray William Cooper waa buuggii ugu cajiibsanaa ebed aan akhriyo. Buuggan Dark Psychology ama cilmi nafsiga mugdiga ah wuxuu si qoto dheer kaga hadlayaa siyaabaha qaloocan ee dadka u isticmaalaan cilmi nafsiga mugdiga ah si ay ugu xakameeyaan oo ay u maareeyaan dadka una isticmaalaan si ay ugu dangaaraan dadka uguna fushtaan danahooda gaarka ah. Waxaan ahay Jaabir Cusmaan JB, halkan waa madashiina xikmaso. Waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa hal subscribe aan like inaad saarto muuqaalkan. Buuggan siraha ku jira waa kuwa khatar ah oo awood badan. daawadaha sharafta leh waxaan kula wadaagi doonaa siraha ugu muhiimsan iyo xeeladaha halis badan aan idinkaga soo arooriyay buuggan. Waxaad si qoto dheer u baran doontaan noocyada u kala baxaan dadka iyo dabeecadahooda iyo sideed ku noqon kartaa qof alfa ah. Waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa 7 xeeladood oo aad dadka si fudud ugu soo jiidan karto. Dhammaadka muuqaalkan waxaad kaga bogan doontaan farsamooyin halis ah oo aad la yaabi doontaan. Si aad wax badan u ogaato, nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalka. Fiiro gaar ah inta aan guda gelin muuqaalka, ujeedka aan soo gudbinayo muuqaalkan xasaasiga ah waa inaad ogaato sirahan halista ah kadibna iska ilaaliso in lagugu dhibaateeyo oo lagu isticmaalo. Sababtoo ah waxaa la dhahaa waxa aad taqaanid ayaa hantidaada ugu weyn ah. Fadlan sirahan iyo xeeladahan aan soo wado ha u isticmaalin si qaldan ee qof ha ku dhibaataynin weligaa. Haddana ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. waa maxay Dark Psychology ama cilmi nafsiga madow? Cilmi nafsiga mugdiga ah waa qayb ka mid ah cilmi nafsiga oo ku lug leh barashada dabeecadaha nafsiga ah ee xun ama waxyeelada leh. Waa cilmi wax isdabamarin khiyaano iyo xakamaynta aadanaha si loogu qanciyo dadka inay noo sameeyaan wax aan rabno. Noocyada dadka u kala baxaan iyo dabeecadahooda. Nooca koowaad, narcissistic, waa qof isaga wax walba isla jecel oo aan dadka kale waxba u ogoleen, keligii jecel inuu ugu horeeyo meel walba. Waa dad psychic-cameras ah. Inta hore waa dad wanaag muujinayo, laakiin ugu dambeyntii waa dad aad u khatar badan. Badankood waa dad doona xilalka iyo awoodda. Awoodda keliya ay haystaan waa dad xagga qancinta ku fiican. Si fiican bay wax kaaga dhaadhicinayaan marka ay wax kaa rabaan. Waa ceed shakhsiyad oo qof leeyahay dareen nafsi ah oo kacsan, baahi loo qabo ixtiraam iyo dareen la'aanta dadka kale. Taas micnaheedu wax waaye inay rumaysan yihiin inay ka wanaagsan yihiin kuwa kale oo ay rabaan attention iyo ammaan, oo ay ku adag tahay inay fahmaan ama daryeelaan dareenka dadka kale. Tusaalooyinka nolosha dhabta ah ee dabeecadaha narcissists waxaa ka mid ah raadinta attention joogto ah, hoos u dhigista kuwa kale, iyo u maaraynta xeeladaha iyaga faa'iido u leh. Narcissists sidoo kale waxaa laga yaabaa inay dareemaan xaq yeelasho wax walba, iyagoo filanaya kuwa kale inay daboolaan baahidooda iyo rabitaankooda. Waxaana laga yaabaa inay ka maqan tahay naxariista dadka, iyagoo aan dan ka lahayn sida ficladooda u saameynayaan dadka kale. Nooca labaad, Machiavellian. Machiavellianism waa dabeecad shakhsiyadeed oo lagu garto in diiradda la saaro danaha gaarka ah iyo ku tagrifalada kuwa kale si loo helo dana gaar ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo Machiavellianism ah. Waa dad aan la fahmi karin dareenkooda dhabta ah ama waxa ay ujeedkooda tahay. Waa dad iyaga wax isla jecel. Mararka si ay u helaan wax wanaagsan waa inay qof u lumiyaan ama been u sheegaan. Waxba cid lama wadaagaan. Haddaa og tahay xitaa kuma sheegayaan waxa. Ma daneeyaan waxa ay qabanayaan ilaa ay ka gaaraan booska ugu sareysa. Si walba ay ku tagi karaan darajada ugu sareysa waa ay sameeyaan. Ficladooda xun ay sameynayaan kama xumaadaan waayo waxay rabaan awood. Tusaalooyinka nolosha dhabta ah ee dhaqanka Machiavellian waxaa ka mid ah siyaasiyiinta isticmaala beenta iyo wax isdabamarinta si ay u helaan awood. Hogaamiyaasha ganacsiga shaqaalahooda ugu faa'iideysta faa'iidada, iyo shakhsiyaad u adeegsada sasabasho iyo soo jiidasho si ay u helaan kalsoonida dadka kale si ay dana gaar ah u yeeshaan. Nooca saddexaad, psychopaths, waa cilad shakhsiyeed oo lagu garto naxariis la'aan, dareen la'aan iyo ixtiraam la'aan. Dadooyinka bulshada waa dad aan dareen lahayn oo wax walba samayn kara iyagoo in yar oo emotion aan lahayn. Wax walba oo dadka ka naxan kama naxan. Waa dad aan waxba u kala socnayn. Si uu wax uu rabo u helo, wax walba waa u samayn karaa isagoo in yar oo dembi ah aan dareemaynin xitaa qof dareemihiisa inuu dhaawacayo iskuma malayn doono. Tusaalooyinka nolosha dhabta ee dabeecadaha psychopath waxaa ka mid ah serial killerska ee aan ka qoomamayn ficladooda, fanaaniinta isticmaala soo jiidashada iyo wax isdabamarinta si ay dadka kale u qiyaameeyaan, iyo shakhsiyaadka ku kaca faldambiyeedyada iyagoo aan tixgelinin cawaaqibka. Nooca ugu dambeeya, nooca afaraad, sociopathy. Guud ahaan, sociopathy waa cilad shakhsiyeed oo lagu garto ixtiraam la'aanta xuquuqda dadka kale, dareen la'aan iyo qoomamo la'aan. Sociopathies waxay isticmaalaan xeelado ay ka mid yihiin wax isdabamarin khiyaano iyo dareen la'aan
si ay u maamulaan ay u xakameeyaan kuwa kale, waxaana laga yaabaa inay galaan dabeecad dembiile ah iyagoo aan xitaa ka qoomamaynin. Tusaalooyinka nolosha dhabta ah ee habdhaqanka sociopathic waxaa ka mid ah shakhsiyaadka ku kaca faldambiyeedyada iyagoo aan ka qoomamayn, fanaaniinta isticmaala beenta iyo khiyaanada si ay dadka kale u qiyaameeyaan, iyo shakhsiyaadka wax ku maamula dadka kale si ay u helaan faa'iidooyinkooda. Sideed ku dhaqan kartaa alpha person? Lucas, qofka alpha ah waa qof isku kalsoon oo aan hareeraha eegin oo hortiisa un eega iyo hadafkooda. Markaad tahay qof kor eegaya aan hoos eegayn, dadka way ku dareemi doonaan inaad tahay qof isku kalsoon. Waqtiga wadahadalka waa inaad 70% eegtaa indhaha qofka aad wada hadlaysaan. Dhawaaqa codka waa inaad kor u hadashaa si aan dadka aad la hadlayso u dareemin inaad bilaa kalsooni tahay ama aad baqanayso. Codkaaga waa in la maqlaa, ma aha inaad dadka ismaqashiinayso, laakiin waa inaad kalsooni ku dartaa marka aad hadlayso. Codkaaga waa inuu noqdaa mid aan qayle ahayn, aanan hoosayn. Dhexdhexaad waa inuu noqdaa codkaaga. Anxiety, qofka alpha ah ma daneeyo dadka waxay ka aaminsan yihiin iyo dadka kale aragtiyadooda. Xasuusna waxa aad aaminto waad helaysaa, marka aamin inay cid walba ku jeceshahay. qaladaadkan iska ilaali weligaa inaad samayso. Qaladka koowaad, hadalka oo aad dudubiso waxay caddaynaysaa inaad bilaa kalsooni tahay. Qofka alpha ah hadalkiisa wuu degan yahay oo ma degdego, waana qof degan oo isku kalsoon. Qaladka labaad, aamuska kadib marka su'aasha lagu weydiiyo. Tani waxay keenaysaa in lagu maleeyo in aanan garanayn waxa aad ku hadlayso. Ugu horeyntii waa inaad garanaysaa wax laga hadlayo si kalsooni daro aanay kuugu dhicin. Su'aashana waa inaad si kalsooni leh aaga jawaabtaa. qaladka saddexaad, closed body position waa adigoo isxidhxidha maskiin iska dhiga. Alpha person waa qof furfuran dhan walba oo aan laga dareemin wax baqasho ah. qaladka afaraad, playing things in front of you waa adigoo ku ciyaara waxyaabaha hortaada yaalo ama faraha iyo cidiyaha. Tani waxay keenaysaa inaad muujiso in aanan xiise u hayn shaygaas ama wadahadalka. qaladka shanaad, adigoo wejiga taabta wadahadalka dhexdiisa. Haddii aad in badan wejigaaga taabato waxaa laga dareemi karaa inaad xishoonayso ama aad been sheegayso. qaladka lixaad, iska ilaali inaad shafka taagto. iska ilaali weligaa inaad jirkaaga ama shafka taagto oo kibir muujiso. Waxay la mid tahay adigoo la i arkaay. Tani waxay kaa dhigaysaa qof istutus badan ama attention raadis ah. qaladka toddobaad, looking down waa adigoo hoos ama dhulka eega marka aad socoto ama marka aad qof la hadlayso. qaladka sideedaad, stupid smile qosolka bilaa micniga ah. keliya qosol marka loo baahan yahay waxaad u muuqan doontaa qof awood leh. qaladka sagaalaad, walking fast haddii aadan degdegsanin si aad ah u soconin. socodkaaga waa inuu degnaadaa, uu noqdaa socod aan degdeg ku jirin. qaladka ugu dambeeya, qaladka tobanaad, hareer eeg badan. waqtiga wada sheekaysiga lagu jiro ama aad wada socoto ka fogow inaad hareeraha eegto. 7 xeeladood oo si fudud dadka loogu soo jiito. xeelada koowaad, qofka wajah oo u tag laakiin ha u muujin mid aad ugu baahan. soo jiido qofka si xirfad ku jirto oo aanad lagaa dareemaynin inaad qofka aad ugu baahan tahay. haddii kale waxaad u muuqan doontaa qof bilaa kalsooni ah oo aan nolol kalaba lahayn. xeelada labaad, u dir signalis isku dhafan oo aan isku mid ahayn. ka dhig dareemahaaga kuwa aan la fahmi karin si aad qofka maskaxdiisa u degto uuna kaaga fikiro. dadka waxay jecel yihiin qofka aan la sheegi karin ficiladiisa. xeelada saddexaad, u bandhig inaad wax walba dhib iyo dheef la jirto. murugada aad la dareemayso kulligeena waxaan kalsooni siinaa qofka meelaha aan ka liidano inaga garab istaaga ee ina dhiiriya. xeelada afaraad, ammaanta waa hab aad u awood badan oo aad qofka ku kasban karto. marka layna ammaano kulligeena waan isdibcinaa oo kalsooni ayaa ina gasha, taasoo ka dhigaysa inaad la qabsano. xeelada shanaad, action is louder than speaking ficil samee halka aad ku hadli lahayd, waayo ficilka ayaa ka saameyn badan dhawaaqa. xeelada lixaad, dhagayso oo dhugo sheekooyinka iyo qisooyinka oo qofka soo maray adigoo xasuuso dib u gelinaya, sida xasuusihii ciyaalnimada uu soo maray, meelaha uu ka liitana eeganaya iyo waxa ka dhiban iyaga. xeelada ugu dambaysa, xeelada toddobaad, ka dheeraw ficilo aan soo jiidasho lahayn, kaftan la'aan, degnaansho la'aan. noqo mid deeqsi ah oo wax bixiya dhan walba, dareen iyo maalba. dark psychological tricks, farsamooyin halis ah. fadlan farsamooyinkan aan soo wado ha u isticmaalin si qaldan ama inaad qof ku dhibaatayso. keliya digtoono in adiga lagugu sameeyo ama lagu isticmaalo. farsamada koowaad, foot in the doubt technique. habkan waa adigoo weydiinaya in wax yar kuu qabto, kadib markuu kuu qabto hoosh yar howl kasii weyn weydiinaya. qofka marka hoosha weyn ayuu xiisayn doonaa. farsamada labaad, social proof waa u isticmaalada dadka kale aragtiyadooda iyo ficiladooda. qofka si aad wax ugu dhaadhiciso, tusaale ahaan waa adigoo dhahaya hebel ayaa waxaa sameeyey, adna waa inaad waxaa samaysaa, ama dadkoo idil ayaa waxaa sameeyaan adna sameey. farsamada saddexaad, flattery
waa ammaanta faraha badan. Qofka marka aad ammaanto waxay ka dhigaysaa inuu dhaganuglaado fikradahaaga, waa aad ka dhaadhicin kartaa, waayo wuu isqaadanayaa qofkaas. Farsamada afraad, door in the face technique. Habkan waa adigoo weydiinaya qofka inuu kuu qabto wax aan suurtagal ahayn. Kadib marka uu kaa diido weydiinayo howl yar ama wax intii hore ka yar, way ku qaban doonaan howsha dambe, waayo waxay dareemi doonaan in yara tanaasul sameeyaan. Farsamada shanaad, anchoring, waa marka qofka aragtidiisa koowaad ama fikradiisa ugu horeysa uu wax ka aaminsanaa ay saamayso go'aamadiisa iyo aragtiyihiisa. Habkan wuxuu ka dhacaa meelo badan sida iibka. Marka wax lagaa iibinayo, qofka wax kaa iibinaya wuxuu kuu sheegi doonaa qiimo aad u badan, kadib hoos ayuu in yar ugu soo degi doonaa si uu kuu dareensiiyo inay ka jaban tahay qiimihii hore. Farsamada lixaad, mirroring, waa adigoo ku dayanayo qofka ficiladiisa iyo dareemihiisa. Habkan waxaa loo isticmaalaa marka aan xiriir dhisayno, markaan isku daynayna fahanno siday dareemayaan. Waa sida adigoo leh, waan ku arkayaa waana kula dareemayaa. Tusaale ahaan, waxaa ka hadlaysaa saaxiibkaaga oo murugaysan, kadib waa inaad u muuqataa mid murugaysan si aad u dareensiiso inaad la dareen tahay. Farsamada toddobaad, priming, ka hor inta aadan wax ka dalban qofka, erayo cusub ama fikrad cusub u sheeg ama bar wax ku saabsan sheygaas aad dalbatay. Waa marka aan aragno shay ama aan maqalno hadhow, waxay saameyn ku yeelan doontaa sida aan u fikirayno. Tusaale, waa adigoo wax lagu sheego ka hor inta aan wax lagu weydiin. Marka wax lagu weydiiyo, wax lagu weydiiyey wuxuu ku xasuusin doonaa wixii lagu sheegay. Farsamada sideedaad, gaslighting, ka dhig qofka mid aan jirinbo adigoo diidaya aragtiyihiisa iyo fikradihiisa. Tani waxay ka dhigaysaa isaga mid wareera, awoodihiisa ka shakiya, kalsooni darana qaada. Farsamada sagaalaad, fear-mongering, ka cabsiinta qofka si uu kugu qabto waxa aad rabtay ama in laguu sheego haddaad waxa ay rabaan samayn weydo ay wax xun kugu dhici karaan. Farsamada tobanaad, emotional blackmailing, waa marka qofku isku dayo inuu kugu maamulo waxaad qabato ama waxa aad dareemayso iyagoo kaa dhigaya dambiile. Tusaale, waa marka uu saaxiibkaa ku dhaho haddii waxaad isiin weydo saaxiib ma sii ahaan doono, waxay kaa dhigaysaa dambiilo oo ay kugu xukumaan dhaqamadaada. Farsamada ugu dambaysa, farsamada 11aad, gaslighting, waa marka daaha la saaro oo la dafiro inay waxaas dhicinba. Waa adigoo wax aan jirinba laisku dayo in lagaa dhaadhiciyo. Sidan qofka wuxuu samayn karaa marka uu awoodda leeyahay, qofka lagu samaynayana isku dayayo inuu waayin qofkaas. ugu dambeyn, haddii aad halkaan nala soo gaartid aad u mahadsan tahay. Haddii aad ka heshay muuqaalkan wax xun aad ka faa'iiday, like saar si uu dad badan u gaaro. La wadaag asxaabtaada, share dheh. Intaan muuqaalkan la xiriir ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa nabad iyo horumar.